shir jaraa'id oo ay si wadajir ah u qabteen wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland mudane Saleebaan Cali Koore, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Cabdikariin Axmed Xinif iyo maayarka caasimadda Somaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteko ayaa waxay kaga hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka danyarta ah ee waxyeeladu ka soo gaadhay dabka habeennimadii xalay ka kacay xaafadda barakacayaasha ee Istanbul ee ku taala bariga magaalada Hargeysa. dabkaas oo ay ku nafwaayeen laba ruux isla markaasna uu khasaare lixaad ka dhashay. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale shacabweynaha Somaliland ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadkan danyarta ah ee musiibadu ku habsatay, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa masaaka ugu faraxsanahay maadaama dabkii afraad uu yahay kaamka ka dhacay inuu yahay kaamkii dabkii ugu gurmadka badnaa halkana mas'uuliyiinta leeyahay ay isugu yimaadeen. khasaaraha dhacay dabku wuxuu bilaabmay xalay 3 markiisaan warka ku helay laba qof way dhimatay sida liiska aanu ku helay meesha markaanu tagnayna ilaa 240 qoys baa ku gubtay guriga kaga gubteen ama cooshadahay ku jireen ay kaga gubteen jiingadana waa ku jireen. khasaaruhu waa inta waxa la galay runtii ka dawlad ahaan gurmad baa la galay. baahida ugu weyn dadkaas ay qabaan hadda marka laga tago waxa degdeg ah ee dawooyin iyo raashin iyo weel iyo dhar iyo waxyaalaha noocaas ah gudoomiye waa dhul waxa jiray dhul meel meeshaas ina qarbasho leeyahay bir hore aan hawshiisa kala soo xiriirnay waxaanu jeclay dhulka inay dedejisan sharciidiisa wixii ka dhiman oo aynu dadkan iska rabno. nasiib darro hay'adda SOS oo dadka shalay too qaybisay raashin bil ah xalay ka wada gubtay laakiin waxay ballan qaadeen inay bisha dambe imka dedejinayaan bay kaan u ballan qaadeen. هذا اللي يراهدو ARC واحد بلن قاضينا وحي عن راشن هاي إذا ما أنت جيريسو حرام هذا نقيا قدوميها هيدا ماريتا أفوين كي يكيد كراشك قنا كويس الله حريري وعن راشن ويديه إنه هيو وانو ديارين إنه ورا وحنو هينو مركب كل ما تقارنه وفهمتي أن هوريلو جرين بها هل كان لقى جلاي وحنو ساك قدوميها قبل كويتي دق جيم ويا إنه حتى وحنو ديارنا إنه بعيه يو وحقادها iyo waxoogaa raashinaan u diyaarno imika loo geynayo dadweynahana waxaan leenahay inaad sameysaan inaad taakula sameysaan cidii weel u helaysa cidii wax u helaysa dadkaas waa dad aad u baahan waa dad banaanka wada yaala ummaduna de markay saacawsa ayay wax noqonaysa ilaahayna u dhawaanaysa. hay'adaha iyo dhamaanna waxaan leeyahay marka laga hadlayo barakacayaasha waa in xafiiska ay khusayso la soo wada mariyaayo wixii macaawinaad si loo ogaado loo kala duwo wixiina halkan waxaan idinka ballan qaadayaa dadka meelihi aan dejinay waanu diyaarnay laakiin dhibaatada qura taagan waxay ahayd intaas oo talaabaha oo la iska daba qaaday gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo maayarka magaalada caasimaddu runtii waa talaabo lagu farayo. ilaa dhulkii ilaa hay'adihii ilaa waxqabadkii ilaa dhakhtarkii iyo dadka kale ee muxsiniinta ee ka qayb qaatay iyo governorka oo la tilmaamay sida ay u tilmaameen waxa leeyahay dadka muslimka ee magaalada jooga inay wixii qof kasta wuxuu awoodo oo ku caawiyo dadka. runtii anagu ka wasaarad ahaan waxaanu kala qayb gali doonaa sidii balbiyaha aanu qayb dadka. waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Antar, Somaliland Space Channel, magaalada Hargeysa.